waxaan maanta halkaan meeshaan ka jeedinayaa oo saxaafadeed ku saabsan kalluumaysiga sharci darrada ah iyo dhibta uu ku hayo Puntland oo saxaafadeedkana waa kana kalluumaysiga sharci darrada ahi waa mushkilad caalami ah oo dhibaato weyn ku haysa wadamo badan oo xeebelay ah Soomaaliyana ka mid tahay isku dar waxa adduunka laga xadaa kalluun qiimihiisa lagu qiyaasay sanadkii inta u dhaxaysa 4 ilaa 9 bilyan oo dollarka Mareykanka ah wadamada ka hooseeya saxaraha oo Soomaaliya ku jirto waxay ku waayaan kalluumaysiga sharci darrada ah lacag dhan ilaa 1 bilyan oo dollar sanadkii sidoo kale Soomaaliya kaligeed waxa laga dhacaa kalluun qiimihiisu gaarayo 300 milyan oo dollar sanadkii sida ay muujinayaan warbixino caalami ah oo meelo kala duwan ka soo baxay nasiib darro lacag ahaan looma qiimeyn qalabka laga burburiyo kalluumaysatada kalluunka la daadiyo dhibaatooyinka soo gaara deegaanka iyo saameynta xun ee uu ku leeyahay nolol maalmeedka bulshooyinkaas haddaba markaan tixgeliyay tala soo jeedinta wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda markaan soo arkay dhibaatooyinka ka jira deegaanada xeebaha ah ee uu keenay kalluumaysiga sharci darrada ah markaan tixgeliyay cabashada iyo qeeladhaanta ka soo yeeraysa bulshooyinka xeebaha degan iyo hay'adaha ku hawlan ilaalinta deegaanka iyo tashiilka noolaha badda markaan arkay qaraarada iyo heshiisyada caalamiga ah ee khuseeya la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah Soomaaliyana ay qayb ka tahay markaan ogaaday boobka iyo dhaca lagu hayo kheyraad badeedkeena iyo cawaaqib-xumada ka dhalan karta haddii aan si degdeg ah wax looga qaban waxaan go'aamiyay sida tan in laga bilaabo maanta oo bisha June ay tahay 2 dowladda Puntland waxay u aqoonsatay kalluumaysiga sharci darrada ah inuu yahay masiibo qaran national disaster musiibo qaran waxaan hoos ayaan ka xariiqayaa inay tahay arintaasi musiibo qaran oo loo baahan yahay in la wajaho in loo jiheeyo awoodda dowladda iyo bulshada reer Puntland la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah in la tiirsado sharciga cid alla iyo ciddii Soomaali ajnabiga ah ee ku hawlan kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Puntland Soomaali iyo ajnabi labadaba waxaan ognahay in badan oo doonyaha sharci darrada ah kaga kalluumaysa xeebaheena inay yihiin Soomaali in ay ka tahay garwadeen oo ay keenaan kuna hawlan yahay arrintaas sharci darrada ah in wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka baddu ay meel mariso xeerarka kalluumaysiga Puntland sida ugu dhaqsiyaha badan in ciidanka ilaalada baddu uu guto waajibaadkiisa ku aadan la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah kana hawlgalo dhammaan biyaha Puntland waxaan ka codsanayaa beesha caalamka iyo wadamada aan saaxiibka nahay inay gacan ugu siiyaan dagaalka ka dhanka ah kalluumaysiga sharci darrada ah waad mahadsantihiin